maxaa godobo qabiiliyo jacaylkeena kala gaalay anoo adiga ku go-ay sidee layga kaa goyn wadna wadnay gogoli ku tal sideedooga gurtaa waxaa isjeclaa wiil iyo gabadh gabadha iyo wiilku laba qabiil ay kasoo kala jeedeen labada qabiil ay kasoo kala jeedaan laba siyaasi ah kasoo kala jeeday labadii siyaasiyaha sawirkooda la soo barbardhigay waxaa la yidhi koode xilkaa noocaas oo qalma gabadhu waxay ka hadashay fikirkeedii iyo garaadkeedii bay ka hadashay dhankii adeerkeed bay tiri waxaa weeye ninkaas ahaa soo marka screenshoda laga kiciyay wiilkii loo diray baysi kala soo deg app store-ka ama play store-ka lacag u dir family-gaaga adigoo jooga gurigaaga adigoo loo diraha lacagta aad ugu diri kartid EVC SAD Sahal MTN M-Pesa hadba kii uu isticmaalo haddaba maantaba ka faa'iideyso oo telefoonkaaga kala soo deg application-ka baysi wiilkii markii loo diray waxaa lagu yidhi heblaaya nagama waxishoonaysaa nooca wiilkii gabadhii uu kula booday uu la soo hadlay isagoo si kale u hadlaya ani ra'yigayga free baan u ahay bay tiri ma garanaysaa waxaa weye dee caayiska dhig aduu hadalkii aa socday macnihii inay isku dhacaan inay isla hadlin buu gaadhay soo aniga way ila soo xidhiidhay aniga Bashiir ahaan ila soo xidhiidhay waxay u tiri walaalo arrinkaas haysta qofka is jeclaayna qisadaas kala dhaxmay reer ahaan iyo qabiil ahaan wiilka la igu dirayaa marka arrinkaas waxaan doonayaa inaad hees iga samayso si wanaagsan oo diyaaran ku yidhi sida iga samaysay sida igu sheegteen abwaanka ugu sheegay abwaan Cabdishkuur Qoran Cali Afmagaashe abwaanka heestii hore ku qaadayay sameeyay ama ana heesayga majority-ga sameeya marka sidii ka sameeyay abwaankii aanu sheegay abwaankii uu soo sidii ka soo qoray uu soo diray ana laxankaan saaray Maxamed Xuseen Habana music ku dhuftay Abqaarilka Casana sidii uu codkii ku duubay heestii sidii ku soo qoray heestii marka waxay noqotay hees dad badan daawo dad badan oo qabiil ahaan la isku diiday oo labada qabiil waa hore malaha konton sano ka hor ay isdagaaleen ahaana loogu diiday ma garatay dadka qaarkood aad weyn marka heesta hadda yar noogu luqaysid beejka hore maxay leedahay maxaa godobo qabiiliyo jacaylkeena kala gaalay anoo adiga ku go-ay sidee layga kaa goyn wadna wadnay gogoli ku tal sideedooga gurtaa sideedooga gurta qalbi ku golanayo ku gacala reemo gagax kala baayo gaarsideedu mooda gaarsideedu mooda inaad godhaysa cashaqa soo galiilayadaydii goorire kuma dhibo ku gooni aga ku gooni aga ku gooni baanaqaye heesaasay leedahay beejka labaad ay ku sii cadaynaysaa xitaa ay leedahay anigoo galgalashada ladi waayay gocoshada anoo gubasha awga gogoliyo nacay jiif sideed igu gaftaayoda raxoogu gamada raxoogu gamada dadangulna la rabiye sida dugu garowda dad angulna la rabiye sida dugu garowda dad angulna la rabiye sida dugu garowda nacbani igowraca sida gacaanu siisa
macnihii dadkan aan guushi inala rabin oo reernimo ayna rabin sideen gacan si saad aniga macnaha iyaga igu soo raacday garab siisan ha marka ka wahga dabcan heestaasi waa hees qiimo badan qof kasta oo dadka maadaama dhanka Soomaalida ay badanaa qabiilka ay xoog u saaraan qof kasta qabiil qof kale loogu diiday way saameynaysaa aad